maadaama ay dumarku ka maskax badan yihiin lama odhan karo maskax badnaantaas ay xasuusisay raggu way ka maskax weyn yihiin dumarka. Could you believe sidee iskaga mid noqona markii first wixii ugu horeeyay iskaga mid ahayn dadka soo sheegna waxa fiican sababta dadka isku dhacaan baaba waxa ah baday waxa fiican qofka markaad sheekaysanaysan sidaad ahayd inaad gurigaaga la tagto nolosha wixii idinku imaada duruufiyo wixii kalena yani idinku sidii ha because qofkan waxba kugu qaatay waxba kugu doortay markuu mustaqbalkiisa ka fikirin wuxuu qofkan waa sidaas oo face kama bedelay marka it's good and it's better in tongues bedelay markaad sheekaysanaysan without filter sheekaysta. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Asxaabta qaaliga ah kusoo dhawaada Wadajir Podcast. Waa anigoo ah Jaamac Dafax iyo xaaskayga Asma Jibriil. Daawadayaal iyo dhageystayaal kusoo dhawaada xalqadeeni koowaad ee caawa ee Wadajir Podcast. Wadajir Podcast wuxuu noqon doonaa barnaamij toddobaadkii la socon doontaan. Barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay arrimaha qoyska, khaasatan lamaanaha, xiriirka, jacaylka, hooyanimada iyo aabanimada. Caawa waxa aan ka hadli doonaa qodob aad ugu muhiim ah guurka oo ah guurka ka hor qofku goorma ayuu diyaar u yahay inuu guursado. Anigoo ku horeysin doona xagga dumarka. Ana dirba weerar ku qaadamiya. Aadiye. Waxa la weydiinayaa abaad nooga warantaa dumarku goorma ayay diyaar yihiin inay guursadaan. Wallahi horta qof kasta yani age kumaha wax la oran karo waa shardi in qofku xilliga guursado laakiinse sida loo badan yahay amba sida fiican oo ay imika ay tahayna qofku inuu diyaar garoobo guurka oo laga hortagaya yani pointkan u soconaa waxa weeyaan in laga hortago furniinka amba in furniinku yaraado si guurku noqdo mid qurux badan farxad badan waqtigiisuna dheeraado. Exactly. Markaas markayn eegno markaa waxyaabo badan dad researcher amba khibrado u leh ay baareen yani waxa fiican gabadhu da ahaan markii 25 jir gaadho waxaan soo warwareegaba aniga waqtigii sheegay marka hadda dumarku markay 25 yihiin gabadhaasi guur waa u diyaar. Research la sameeyay oo horta weli manakaas mar hore ahaa oo jaamacadda Utah ee Mareykanka ku taala ay sameysay 2015 waxa la sheegay gabadha markii 25 jir gaadho inay guur u diyaar tahay inaanu yaraanayo reedkii furniinka marka dhinaca gabadha laga eego hada maxaa marka reedka furniinka gabadha kaliya kuma xidhna labada dhinac buu ku xidhay laakiin dhinaca gabadha marka la eego gabadha yani 25 jir ah markay reer sameyso way ka furniin yarar tahay weeyaan haday ka horeyso that's the right one aad furniinku ka yaraanaya qoyskaas hadana dimito 20 jir guus hadii kale aan balance ka dhigay laakiin yani labada dhinac ba iyadoo la isku dheeli tirayo maadaama dhinaca hablaha aan ka hadlayo 25 jir ayaa fiican inay gabadhu guursato. maxaa numberkaas loo soo qaatay numberkaas waxa loo soo qaatay horta maskaxda bini'aadamku in general qaybta decision making ka samaysa waxa ay develop inay yani ay kobacdo inay samaysanto waxa ay joojisaa qofku markuu 25 jir gaadho yani waxa maskaxdeena oo dhan ba kobci joojisay laakiin qaybta decision making ka qaybaha ugu muhiimsan waa soo koraya oo qof maskaxdiisa koraysa ay dhiman yihiin ha waxa laga yaabaa gabar 25 ka yar hadda guursatid inay markay 25 soo gaadho kugu caqlaysato marka caqlaystaano way fiican tahay ay tiraahdo idil gaadhay markaas talabaada kale waxa kale ay 25 ku muhiim u tahay gabadhi waa gabadh wax baratay bulsho la soo dhaqantay soo shaqaysay markay 25 jirta marka qofku markuu bulshada la soo dhaqmo oo dadka uu dhex galo oo yani nolosha dhabta ahayd xataa qofku soo arag exactly waa arag qof ay aragana si fiican buu dhaqan karaa gurigiisa marka waa waqtiga ugu fiican aan oran karo gabadhu waa yani inay guursato waa 25 idinkana dhinaciina soo daayay 25 waa age wanaagsan 25
waxaa odhan karaa dee sharaxaadaasna way nagu qanacsay waa number wanaagsan. xagga ragga haddaynu ka eegno aniguna study kale ayaan soo tixraacayaa. studygaas runtii waqti horaan akhristay 2015 baa doon maana aniguna waan raacay waa ku dhaqmo. marka studygaas waxaa ka hadlayaa ninku xilliga ugu fiican ay tahay in ku guursado. marka wuxuu sheegaya 28 ilaa 32 inta u dhaxaysa range buu sameynaya inay tahay xilliga ugu wanaagsan uu ninku ay tahay inuu ku guursado. marka waxaa lagu qodobeynayaa dhowr qodob. qodobkooda waxa weeye xagga maturity waa iskaga mid oo sidaas oo kale malaa rag wayba ka dambeeyaan inay ka maskaxdooda ka develop garowdo dumarka. anna waxaan ku hayaa up to 28 inay ragga develop garowayso. marka laga yaabo ninku inay ka dambeyso. marka ninka maskaxdiisii up to ilaa 28 la gaarayo way soo koraysaa macnaa ma dhamaystirmayso maadaama ay dumarku ka maskax badan yihiin. lama odhan karo maskax badnaanta sida xasuusisay raggu way ka maskax weyn yihiin dumarka. could you believe sidee markii la eegay physically maskax nin iyo maskax qof dumar ayaa la soo qaaday labadii miisaanka la saaray waxaa ka maskax culus ninka. marka hadduu ninku yiraahdo aan ka maskax weynahay waa literally waa true. kolley shaygu inuu weynaado iyo inuu yaraado muhiim maaha. maskaxdu inay weynaato waxaa ka muhiimsan saad u isticmaasho. marka more brain cells way laakiin weynaanta ku dheedii dumarku weydika may maskaxdu waa hadba sida loo isticmaalo ma ogtahay. qofku markuu maskaxdiisa tuujiyo u isticmaalo more creative uu sii noqdaa. marka dumarkuna way ka maskax isticmaal badan yihiin. taas way ka maskax badan yihiin. waxa la yidhi maskaxda dumarku ma fikirka waxyaabaha aanan cajiibka waxa la yidhi maskaxda dumarku mar walba waxba ka dhex jira maxay ka fikiraysaa. waxaa laga yaabaa marka qaad inaan dhigi jiray maxaad ka fikiraysaa aan ku waxba blank baan weli isticmaalaa nothing. laga yaabaa inaan saa anagu la fadhiyo talaad maxaad ka fikiraysaa nothing just maskax like empty space. arrinkaas xagga dumarka kama macquul aha la yidhi gabadhu mar walba waxay ka fikiraysaa. that's why ku rumayso waayo iyo naada waxba marka develop cognitive ability and decision baa la yidhi baa develop garowda xaggaana ragga decision making kiisa ayaa fiicnaada. taas oo qodob. qodob kale waxa weeye financially stable weeye ninkii markaas 28 jir to 28 to 32 waa qof shaqaystay most likely oo career samaystay oo shaqeeya oo financially stable. waana qodob aad muhiim ah xagga financialku. qodobka saddexaad waxa la yidhi waa qof khibrad leh oo macnaha laga yaaba dee soo sheekeeyey soo xasaaway. qofka markuu soo xasaawana waxa laga yaabaa dee dad badan inta soo wada sheekaysteen inuu garanayo sida problemska dumarka loo xaliyo dee uu expert ka yahay xaaladaas which is iyaduna qodob aad kale u muhiima. marka raggii 28 to 32 waa macnaha waxa la leeyahay xilligaa qofku markuu guursado waxaa yaraanaya furiinka reedka furiinka. hadduu ka hor guursado intaa reedka furiinku kor buu kacaa. kadib intaa hadduu guursadona reedka furiinku kor buu kacaa. marka waxa lagu sababeeyey ka hor hadduu guursado waxaa caqabad ku noqonaya financialkii. waxaa caqabad ku noqonaya qofkii aan weli qaangaadhin fully qaangaadhin oo dee dhallinyarnimadii ku jirto suuqii ku jira. waxaa caqabad ku noqonaya xagga experiencekii iyo problem solvingkii. xagga kale 32 up to 40 hadday sheekadu u gudubsanay waxaa laleeyahay waxaa negative ku keenaya qofkii way of life buu samaystay markaas in badan buu single ahaa waa lagu leeyahay markaas waa doobkaa maray. marka waxaa laga yaabaa inay ku adkaato nolol kale amba qof kale inay is helaan oo ay isqaataan. waxaa laga yaabaa dee nin 40 jiri let's say 40 jir inuu gabar 25 jir la guursado gaab baa soo baxay weyn. laakiin markuu dee 32 isku dhow yihiin at least way isku generation. marka taasina caqabad bay noqotaa. marka waxaa lagu taliyaa in iyadoo qofku xaaladihiisa eegayo inay tahay ageka ugu fiican ee uu ninku ku guursan karo. waana ka aan ku talinaya anigu inuu qofku raaco aniguna waan raaco way anfacday. okay xagga dumarka
haddaan soo noqono maxaa kaloo u muhiima gabadhu marka ageka laga yimaado in ay ka dhisnaato? Okay, horta waxa muhiima gabadhu markay u diyaar garowdo inay guursato inay isla fadhiisato horta number 1 muraayad soo dhigto qofka yani inay isbarto intaan makeup la gaadhin ka hor intaan makeup la gaadhin muraayadda qalbigeeda wuxuu noqon makeup ka hor xataa intaan makeup la marsan baa la sameeyaa process kalimkaan ku sheegay moogta. okay qofku waxa fiican inuu yani naftiisa barto. okay yani naftaada markaad taqaano waxaad jeceshahay waxaad necebtahay waxaad hiigsanayso qofkaad nolosha la wadaagasaana wadada aad jeexatay unbuu soo maraya. qofka saxda ahabaad wadada rabay baa isla helaysa. exactly in la xitaa qofku dee wadada xataa intaanu rabin waa inaad adigu barataa soo maha waxaa tahay maxaan jecelahay maxaan necebahay walaalo waxaasaan jecelahay anu iyo waxaasaan necebahay yani inaad checklist samaysataa checklistka habeenba 3 u dhigta marka waad ku baarbaaraysaa mid checklistka aad isla buuxin karaysaa ayay u fududaanaysaa dabaqina checklistka isla buuxin kartaanoo yani qofkii dee waxaad dhibsanayso isaguna kula dhibsanayo waxaad jeceshahay uu kula jecel yahay khasamaha 100% laakiinse qof walba waxba ugu muhiimsan qof walba 3 buu jecel yahay 3 buu neceb yahay oo kala niraanaba marka qof walba isagoo wixii ugu muhiimsan eegaya inuu laakiinse adigu isbarato because dadka qaar waxa dadku 88% ma yaqaanaan moogtahay so waa inaad isbarataa waxaad tahay shakhsiyan waxaad jeceshahay waxaad neceb tahay iyo waxaad hiigsanayso intaasaan kusoo koobana. okay waa very interesting. waxyaabaha ugu muhiimsan dadku maya ay labada qof xiriirkooda wadaajin kara amba xagga xasaabaha guurna lead garan kara waxa ka mid ah labada qof inay yihiin laba qof oo wax iskaga mid ah common things leh hadday hobbies noqoto hadday noqoto nolosha sida loo arko mustaqbalka waxa la wada rajada laga leeyahay maana laba qof oo isku meel u socda way ka fududahay way ka qurux badan tahay markay salaam mutual feeling na haysta oo dareenkooda yani labada dhinacba ay isku dhinac u socdaan. absolutely marka qofku marka la leeyahay inuu isbarto waxay u muhiim tahay markaad garanaysid qofka aad doonaysid amba waxyaabaha aad doonaysid wax kuu fududaanaya inaad raadsatid qof waxyaabihi aad doonaysid leh khasa maaha qof walba inuu yeesho laakiin the end of the day sidaad u date garanaysa u sheekeynaysid waxay helaysan qof aad doonaysid oo qofkan waaw tan waa iska mid baan tan iska mid baan kadibna meeshii spark baa ka imanaya amba waxa la yiraahdo chemistry chemistry physics waa isku dhamaan inagu horta maxaa iskaga mid noqonay markii first wixii ugu horeeyay iskaga mid ahayn inaan xayawaanada jecelnahay anigu waxaan haystaa kaftanka xagga macnaha humorka waxyaabaha comedy-ga runtiina anigu waxyaabahan aadka u qiimeeya ka mid tahay aan jecelahay qofku hadda dadka asxaabta aan mimiska mimisyadii dadka mimiska indhaha kaga rida xagga jokiska marka qofku xaggaas Instagram TikTok WhatsApp mid link duulaya at the same time hal qof baa waxaas kusoo diray meme nation marka waa wax aad u muhiim qofka inaad dareentid qofkan inuu yahay the right person hadday tahay in qofka kaftankiisu kin qabanayo isku wax inaad jeceshihiin xitaa isku filmaan inaad jeceshiin isku wax inay idinka qosliyaan ayaa waxaa laakiin I think waxaan odhan karaa waxba wada daawan karna aad misi kala fogin aad misi kala comedy-ga wixii comedy-na waan jecel lahay wixii qaaqana waan neceb lahay laakiin saadu wixii waxaad jeceshahay maxaa la dhahaa documentary iyo reality reality maaha hataa reality shows realitiyadii kale adduunyadiis eryanaysa dee oo qayb ka tahay haddaan adduunyadiis eryanayna daawan laakiin waxyaaba comedy-ga wada daawan karaa filimada comedy daraamadana waa kaa dhaca marka filimada jacaylka iyo daraamada meelaha sida ku kala duwana aad iyo maxaad kale ku daraysaa markayn inagu iska imaano inagaaba dhexgalnay already markay inagu iska imaano waxa fiican gabadha oo kale communicationka inay ku fiican tahay inay
gudbisan karto wixii ku jira oo kale waxay ka cabanayso maaha inay caawasho badnaato laakiinse waxay ka cabanaysaa dhibaya because qofka wixii markay wax guntaada ku jiraan qofkan ma wada joogi kartaan waa inaad tiraahdo waxaad dibsansid kaale waxbaa dhibaya I wanna talk inaad hadlaa rabaa waa inaad markaa gudbisan kartid markay communication loo gudbinaya laakiin aada muhiim waxyaabaha caqabada ah waxaa kamid ah marka la haasaaway iyo marka kale xitaa reerka leeyahay kelimadu wax mararka qaar waxaa jira waxa ku dhibaya in ay sii wareeriso habka aad u odhanaysid aad u communicate garanaysid sida aad u sheegaysid waxaa laga yaabaa in waxaanaad ka xanaaqsan tahay haddana toonka aad ku sheegaysaa oo problem kale sii abuuro qofkii defense ku abuuro qofkii kale magaranaysaa si halkii marka si kastoo arrintu ay pressure u tahay amba explosive amba qofku cadhaysan yahay inuu qofka marka wuxuu sheegayo tone amba cod sifila friendly ah wax ugu sheego isagoo aan pointkii sii ka tegay inuu ka tanaasulayn inuu sheego taa waxaa lagu xalin karaa qofku wuxuu toonkiisa kullaan karaa markii xaaladda hadda taagan tahay iminka oo kale qofkii subaxii oo kale wax kugu sameeyey isla subaxii markaad garacdo 5 minutes later dee waxaa xanaaqsantahay kuleylkiiba kugu sii jira weli laakiinse markaad yar kala degto barqada ka yara wareeg baad leedahay markaa horta ma fiicnaba qofku inuu markaad cadhootaba inaad markaaba go-aan gaadho because markaad cadhaysan tahay 120 qalad baad ku dhacaysaa maogtahay marka waxaa fiican inaad yar nasato xadiis baaba ahaa dad cadhootid haddaad taagan tahay fadhiiso dad fadhidina jiibso cool down marka waxaa fiican qofku inuu waqtis yar siiyo waxaa laga yaabaa waxaad iminka ka gubanaysa inaad iska bilowdo wax way noqonba oo yani moodkaagaba ku xidhnaydba marka waxaa fiican inuu qofku waqtiisa siiyo markuu cadhoodaba markaaba aanu ka react garayn laakiinse wixii markaad u fiirsatid waa inaad gudbisan kartaa laakiinse maanta waxa ku dhibsanaya haddaad liqdid ood berina liqdid saa dambana liqdid saa kuunta waad qarxasaa waxaa kaloo aada muhiima dadku isku khaldaan qofku waa binaadam khalad baa ka dhici kara qofku haddaad waxaas igu sameeyey inaad qofkii isagii insult garayn ama isagii caayin wax isaga offend garaynayaan odhan laakiin ficilkii aad ka helaysid waxa aad igu samaysa waa wax xun laakiin aad odhanta qof xun baa tahay adigu macnaha la kala saaro ficilkii iyo qof because qofkii waxa laga yaabaa wuxuu kugu sameeyey wax ka daran inaad ku samaysid ku caydid oo sheekadii ay sii adkaato uu qofkiina isagii offended dareemo marka hadhow kii aad u cabanaysaa dib u raali geliso ka weynaataba wixii aad samaysay ka cabanaysa ay kasii weynaato that's why u fiican tahay qofku inuu waqtiisa siiyo markuu cadhaysan yahay anuu markaba ka react garay aan qodob taa ka duwan haddaan ku dhaqaaqno inta haasaawada lagu jiro horta inta badan cadhaba lasma tuso inkastoo dad ay jiraan haasaawaha xitaa markay ku jiraan daraamada jecelo intaas eryanaya horta anu waxaan aaminsanahay ma ogtahay dadku markay sheekaysanayaan labada qof ee noloshii kalaaba saamayso laakiinse labada qof markay sheekaysanayaan siday isku yihiin unbay guriga la tagaan ma ogtahay way ka duwan tahay ayaan aaminsanahay inta badan because marka la sheekaysanayo wax badan baa la macaaneeya la qurxiyaa oo la iska dhisaa okay dib baa wax sax hadhowna shabeel miciya lala soo kala bixi karaa dadkaas ma fiicna because dadkaas ma fiicna waxa fiican sababta dadka iskugu dhacaan baaba waxa ah bade waxa fiican qofka markaad sheekaysanaysan sidaad ahayd inaad gurigaagana la tagto nolosha wixii idinku imaada duruuf iyo wixii kalena yani idinkoo sidii ahaa because qofkan waxba kugu qaatay waxba kugu doortay markuu mustaqbalkiisii ka fikerayna wuxuu yihi qofkan dee waa sidaasoo waxba iskama bedelaya marka it's good and it's better inaan toonka isbedel markaad sheekaysanayseen without filter ku sheekaysta waayo qofkan iskaga dhaadhicinaysaa horta marka reality because haddii kala duwanaato aad marka horena weji qurux badan iyo qof dabeecad wanaagsan oo aan aad ahaato waana si dadku u badan yihiin iminka hadhowna qofkii uu la soo baxo toon kale waxyaabaha halista bay ka mid tahay marka mar walbana way ka eeg horta waxa keeni kara marka la sheekaysanayo waxa la isugu imanaya ma badna oo waxa laga yaabaa dee wiiga mar la kulmaya telefoonka la iska jecelahay sheeko qurux badan baa socda laakiin guri marka la yimaado thousands kumanaan
waxba dee qofkii dhex maray dee noloshii baaba idin saameynaysaa laakiinse waxba kaa cadhaysinaya waxba kaa farxinaya haddana aad siintahay qofkan aad sheekeysanaysaan sababtaad u sheekeysanaysaan basoomaa qofkana dabeecadiisii dhaqankiisii iyo iska eegtid marka waxyaabihii aad ku dooratay bal hadday filter ahaayeen ka shakeen mina mushkilad ahayn marka qofku markood sheekeynayso qofkan la sheekeysanayso already pointkaad u socotaa waxa weeyaan guur soo maha waa inaad sidaad tahay oo ilaahay kugu abuuray ee dabeecadaadu tahay adoon waxba iska bedelayn inaad ahaatid marka qofkani wuxuu kugu doortay inuu kugu doortay wuxuu kugu nacay inuu kugu nacay wax walba way iska cad yihiin gurigii marka la tagana nolosha saameynteedii iyo hawlaheygii wixiigii waad wada xashan kartaan because already qofkan waad og tahay bada wixii jiray isbedel badan marka ma soo baxayo isbedel badan ma soo baxayo qodobka u dambeeya aan kasoo gebagabeyno qodobka soo doorashada haye maxaa la isku doortaa wiilku muxuu gabadha ku doortaa haye gabadhu maxay wiilku ku doortaa wallaahi markaan iminka inaga adde dadka matalan sama anigu shaksi ahaan waxaan odhan lahaa gabadhu markay wiilka dooranayso ay nolosha la wadaagayso marka ugu horeysa waa inay egta qofkan dulqaad ma leeyahay samirkiisu waa intee maa la ursiiyey mise waa loo daray maxaa dulqaadka number one uga dhigtay wallaahi waxaan aaminsanahay baanu inuu guurka ku baysgaraysan yahay dulqaad iyo ixtiraam weliba dulqaadku ugu muhiimsan yahay waayo qofkani haddaanu dulqaad lahayn ma wada joogi kartaan because dumarku iska xaalad badan yihiin xaaladahoogaa iska badan marxaladahoogaa iska badan hawshoodaa iska badan shaqooyin badan oo inaan ogeyn bay hayaan marka mar walba in laydin dulqaato doonaysa haade 99% inaan loo dulqaato halka soo harayna annaga idin dulqaadano marka gabadhay waxaan ku odhan lahaa ninkaad nolosha la wadaagayso waa inaad samirkiisa eegtaa qofkan hadduu dulqaad leeyahay wasaa lagu ogaanaya mid shaabinaysa waayo maxaa markaa dhacay oo qofka aan dulqaadka lahayn qofka aan dulqaadka lahayn ma inuu isqariyad moodaysaa maxaa lagu garan markaa wuu boodayay haddaad wax tiraata markaaba sugahaf odhanaya boodayo dulqaadka kala bal sharax qof baa jira yara boodo oo hadalka iyo waxaas bal sharax dee qofkaas hadduu hadalkii ka boodayba maxaa wax kale la iskulaba gaadhay markaas hadalkiibu ka boodayba oo fartu gaadho ka hor dee kuwa fartu gaadho sin kala iska hada how dhawaanina koos maya ka fartu gaadhana midaan fartu gaadhin bay silayaan laakiin si eeg waxa odhanaysa eeg wax tirahda magaranaysa waxay la tahay qofku xagga dulqaadka markii la eegayo xagga dulqaadka waa inuu ninku dulqaad badan dulqaad yahay adigu dib isu qiime ma tahay adigu qof dulqaad badan marka hadday ku geli karto dee arma iyadu dulqaad badan tahay iyada xataa dulqaad badnaato laakiinse waxaan ka hadlayaa anuu caadiyan muurka dumarka muurka dumarka waxaa qaabili kara in general waayo dumarku muurka way ka wada siman yihiin waxaa qaabili kara nin samir badan ninka haddaanu samir gabadhu markay umusho oo kale يعني حالة أي مرتو هذا أنا قف سمر لهين لما هو ده شوقي وأنا مركز وجود دجال كبديه هي تدك وجود دجال كبديه ومركز جواد مركز أور كلا هذا هي مركز أمشو مركز إذا عم بقى هذا كريم با وهذي بكير جالس كتيراته ومذو وأنا تيراته ها ومذو صحنا بلد حزامي مركز exactly لا كيف هذا هاي واسكت سيداس ده قبل اللي ماشي اسمه مدو الله راعي yes they وين because قفكني مرحلة بكتشرة حالة بكتشرة عريس كسارنا يا بكبضن بقى ها مركب وين أنا مسنة طبعا ما حكى بس نفس ما حكى دلوقتي كم حكى صحيحة واحد كحيجة قفك جوادك كدوران كرتا ويلكين ولا شو لو ذا قصو كمان ويلكين سيدا بو تريد جري سيدا بو لا رقم والدك سيدا بو لا رقم ولا ليه صح because waxaad la dhigan tahay aduu hooyadii iyo walaashii ayaad matalaysaa ninkaasi hadduu yahay nin reerkooda ka warhaya nin hooyadii ka warhaya haye hooyan dawo u wadaayo hadaad maqasho ka war hadduu ku yidhaahdo tii walaashay oo aroos tagtay baan soo dilay aan iminka gacanta kasoo qaaday كسي عرض أنا كذا رأس كتكتك وحكت عندنا next بات يعني okay
marka yani waa ugu muhiimsan weeyaan yani ninka siduu ula dhaqmo laakiin haddana dumarku waxay I see opposite things ay dumarku leeyihiin ninku hadduu reerkooda u fiican yahay soo kuwa dumarka haddana ka cawda mamis boy bay ku sheegaan reerkoodaaba xukuma walahi xilwan idin maxaa laydin raaca reerka waa xukuma maxay tahay I don't know dumarku waxay ka cawdan soo maxay tahay barnaamijyada bixi jiray la odhan jiray sodogta iyo waxaa sidii laysaga fogeynay reerka no dadkaas waa dadka cilaajka dadka hagaagsan bayn ka hadlanaa dadka hagaagsanna waynu ka hadlanaa familiga qofkus haddaanu familigiisa number one ahayn adigana kaama dhigi karo exactly familigaaga wayna madaxa ku saarnaada kadibna wixii kale ya financial ayaa ku xiga qodobka saddexaad fulus yani muhiim maaha qofku inuu lacag badan haysto inuu taajir ahaado taas muhiim maaha laakiinse muhiimadu waxa weeyaan qofkan ma yahay qof dadaalaya qof mustaqbal ka fikeraya qof yani aan jiifin de qof dadaalayo kartidiisii loo xasan doonaya inaan sameeyo xasan doonaya maaha afka laakiinse actionkii qof shaqaysanaya amba ka go-an tahay exactly dadku yani khasab maaha dadku nolosha qof walba ma caawiso marka stages baa lagu kala jirjiraa laakiinse haddana qofka dadaalaya at the end stageka ugu sareeya u gaadhaya marka qofka nolosha la wadaagaso waa inaad ku doorataa inuu yahay qof dadaalaya kartidiisiina leh idinkuna dhinaciina xagga ragga kolay raggu gabadha quruxda badan ma guursadamala quruxda doorto qayb weyn bay ka tahay waa attractionka waa number one xagga qodobada wax lagu doorto marka quruxdu lama odhan karo waa number one oo waa qodobka koowaad ee ragga waa calaamsan lama odhan karo laakiin meelo muhiimay kaga jirta qodobka koowaad raggu ka eegaan guur markay noqoto aan san aaminsanahay waxaa weeye horta gabadhaasi in ay tahay gabadh mas-uula oo hooyo noqon karta because ninku markuu guursanayo wuxuu ka fikiraya long term caruur buu ka fikiraya mustaqbal ka fikiraya qof macnaha caruurtiisa iyo gurigiisa iyo isagaba dee mas-uul ah oo mas-uuliyad qaadi karta isaguba mas-uuliyadda mid leeg uu qaadaya qodobada kale muhiimka waxaa kamid ah inay tahay qof ixtiraam badan oo dhowrsoon oo ma garanaysaa dee muxtarima oo la odhan karo gabadhaas waa gabadh mas-uula oo ixtiraam badan oo ma garanaysaa aada u wanaagsan qodobka saddexaad oo quruxda oo indhaa markaad saa uga eegto saddexaad aada u qurux badan qodobadaas horta waa qodobada formalka ah laakiin waxyaabaha aada ku muhiim waxaa kamid a labada qof markay isbartaan xagga connectionka iyaguna aada muhiim isfahanka waxa dadku yaqaanaan oo labada qof markay wada sheekaystaan amba haasaawaan waxaa laga yaaba qodobada kale oo dhan inuu qof uu ka tanaasuli karo horta qof liiskiisa wada sitaa ma jiro oo odhan karo toban baan sitaa 10 kuwa buuxsameeyaan laakiin waxaa jira qof waliba waxa priority ugu muhiima iyo waxaan muhiim ahayn waana iska wadaan marka qodobadaasna waa xagga ragga markaan eego kuwa ugu muhiimsan anaa waan dheeraynay maxaa waa habeenkii koowaad sheekaduna waa nala dheeraatay waxaanu rajeyn doonaa episode ku xigana inaanu sheekooyin kala xiisa leh idinla soo wadaagi doono idinkuna qayb baa ka noqon doontaan wixii commenta ee aad xiiseynaysaan idinkuna dhinaciina kusoo darsada waxaad ku dooran lahayd qofka nolosha la wadaagaso maxay tahay sidii qofka ugu diyaar garoobi karaa guurka ka hor marka idinkuna dhinaciina aad kusoo darsan doonto aad ba mahadsantihiin